إسماعيل مدده وجوه جيبوتي وحكى شقة إنسان صومالي يهشين أفر عشان سجى كيني مركه روح يري جريرة أدرس ويري صومالي وحكى جرت أفر بيلو صوماليات وحكى لنا صومالي ما هو استعمالي كلمة أدرس واستعماله لغة إنجليزية ولو لجوده وحكى أما دت كله ويري صومالي يا أدرس صومالي يكوكله أدرس أنو إلى جدي دتك جريرته وأنا دتك أصل كاي صومالي ده دول كان لوجو يميد ديجان كاي دول كبرواقة ده دول dhibaatooyinkan aad sheegaysaan iyadoo ay jiraan haddana matalaad ayaa dawladda ku haysataa matalaad kuma haysan wasiirkii warfaafinta oo idinka matalaad kuma haysan waxaa ku jirtaan sektarada kale ee dawladda qaybeeda kala duwan yani matalaada ku leedihiin soo xildhibaano ku leedihiin dawladda federaalka meeqa wasiir oo jilaaca taqaano baarlamaan ku jira golaha wasiirada ku jira baarlamaanka soo kuma jirtaan waxaan ka rabaa haddii yani aad ka soo horjeedaan maxaa idin diiday cabshakuur in aad idinka oo qoomiyadii dowladna isku afina noqotaan horta bini aadamka isku af ma noqon karo sunno waa waxa aniga diiday walaalkay qaadanaya bini aadamka isku af ma noqon karo waxyaabo badan waxaa jira Soomaalida lagu maranaayo jareertaan loogu talagalay in lagu baabiyo ma maqashaa Soomaali waa isku af Soomaali isku af ma laakiin qoorta la isu galiya waa isku dhaqan waa isku af waa isku diin marka la dhaayo waxa lagu banaystaa jareerta lagu banaystaa dhulkoodii iyo hantidoodii iyo dhaqankoodii iyo waxooda lagu banaystaa waxa la soo bandhigay adduunka loo sheegana dhaqanka jilicda la soo bandhiga kan jareerta lama sheego waa isku afal wulay waa isku dhaqan wulay kay jilicdana la qaadanayo waxyaabo badan oo la lumiyaa jiro aasaarta hadda markaad aragto qoraalada qoran Soomaalida oo taariikhaha qoran iyo waxa lagu bumbuuniyaa daaroodka lagu bumbuuniyaa lagu xayisiyaa sababtan xilliga wax la qoray dawladda Maxamed Siyaad Barre joogtay in daarooda wadanka xukumayay taariikhda la qoro Soomaalida hawiyaha waa ku dulman yihiin si la mid ah sidii hawiyaha ugu dulman yihiin ayaa jareer oo dhan ay ugu dulman yihiin oo taariikhdooda aan la sheegin taariikhaha kale aad sheegtay in qoomiyadaada taariikheeda aan banaanka la keenin sida halgamayaashii maxaa kamid ah nidaamkan sidiisa waxaa loo sameeyay in lagu dhibaateeyo dadka jareerta ah asalkiisa hore waxaana sameeyay nin la yiraahdo Ismaaciil Umar Geelle oo ah ma dhihi karo madaxweyne laakiin waa niman dhicin oo awood ku haysta dadkiisa iyagu u ololeynayo in Soomaaliya laga ciribtiro 4.5 si cad waxaad u sheegtaa yani u adeegsataa kelmadda beelo dulman yaad ula jeedaa beelaha dulman waa in nin rag ah la yiraahdo xuquuqda ninka ragga ah ma lihid afarta beel kasta ninka ragga ku jira waa fuul waa dhamaystiray laakiin adiga waa dhiman tahay ayaa la leeyahay ninka ragga ku jira 0.5 ka ku jira waxaan rabaa nidaamkan 4.5 dad badan waxay qabaan in uu xal ahaa in uu isku dhac beelo kale badbaadiyay adiga sidee u aragtaa Siyaad Barre ka soo bilow askari wuxuu ahaa oo gumeysta Talyaani ah aadan Cabdulla Ismaan askari Talyaani ah ninka la leeyahay Maxamed Cawaale Liibaan wuxuu ahaa turjubaan Talyaani ah yani dhammaan dadka xilalka soo qabtay waxay ahaayeen dad Ingiriiska iyo Talyaaniga u shaqeeya sidee ku dhici kartaa qoomiyad Soomaaliyeed in aysan ku jirin cadaaladii ama garsoorkii dalka aysan xubin aysan ku lahayn